awowgay curadire dawlad buu ahaa duubilaa saarayo deeqna wuu lahaa dadkana usaga dajo dalka loogu munaasabadana waa ay soo qabanqaabiyeen beelaha dir ee degan magaalada London ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin ugaasiyo oday dhaqameedyo culimo awdiin waxgarad iyo kooxaha kale ee bulshada oo isugu jiray rag haween iyo dhalinyaraba shirkana uu hogaaminayay suldaanka guud ee beelaha dir suldaan cabdiqaadir suldaan ismaaciil oo ay weheliyeen salaadiinta kale ee beelaha dir ayaa ujeedadiisu ahayd inay baaq u diraan dowladda federaalka Soomaaliya salaadiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa si baynu yeelanay inaynu ka soo wada qayb galno bahweynta direed shir ay leedahay waxaan idinku soo dhaweynayaa arrintan qiimaha badan ee aynu isugu nimi dir waa ummad soo jireena waa ummadse haykalkeedii aanu isku xidhnayn ulajeedada arrintan aynu isugu nimid waxaan doonaynaa inaynu suuro gelinno isku xidhkii direed haddii ay jiri lahayd inaanu dulmi wadno haddii ay jiri lahayd koox naga mid ah oo dulmi wada meel kastaba ha ahaatee waanu u sheegi lahayn waxaan dhihi lahayn war dulmiga daaya laakiin yeeli mayno inaanu dulmi qaadano yeeli mayno in kismaayo iyo jilib iyo jamaama naloogu taliyo diidnay nalagu qasbi maayo yeeli mayno xoog baanu leenahay tol baanu leenahay ciidan baanu leenahay cilmi baanu leenahay gabadhii shirkan ayaa halkaasi lagu akhriyay baaqii ay soo saareen beeshow ta koowaad waxa weeye waa in beesha direed siyaasiyiinteeda waxgaradkeeda aqoon-yahankeeda si wada jir ah ay u cambaareeyaan siyaasadda guracan ee ku salaysan dhulboobka iyo sadbursiga siyaasadeed ee lagu hayo dhammaan beelaha direed ee koonfurta Soomaaliya khaasatan kuwa dega jubbooyinka iyo shabeellooyinka ta labaad waxa weeye waa in mowqif cad oo siyaasadeed laga qaataa arrimaha kismaayo iyo jubbooyinka iyo gado oo ay degaan beelo fara badan oo la qariyo oo ku aftirsada beelaha direed iyo digil iyo milif labada ugu badan ee uguna dulman weey waa in beesha direed taageertaa oo ay difaacdaa in shacabka xaqa u leh jubbooyinka ay samaystaan maamul si cadaalada ku yimaada oo ay hormood u tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aanay hogaaminaynin dowladda darisa ee ay dowladda federaalku gooni u hogaaminayso iyadoo ka taageeraysa haddii dowladdu se ay ka gaabiso iyagu inay maamulkooda dhistaan waa in beesha direed ay dhaqso u samaystaan maamul ay ku midaysan yihiin taasoo hormood u noqonaysa ay hormood u tahay dowladda Jabuuti iyo dowladda Soomaaliland tashanaad waxa weeye waa in beesha direed sida caadadu ahayd maanta mar kale ay u istaagtaa difaacidda xaqeeda iyo xaqa ummadda Soomaaliyeed ee lagu tumanayo khaasatan koonfurta Soomaaliya haddaan soo gabagabayo qodobka ugu muhiimsan ee ugu dambeeya waxaa soo socda ama aan ku baaqaynaa in aan ugu baaqno dadka dirka ku aftirsada iyo inta wanaagsan ee la degta ee aan boobka ugu imanay ay caadiga u wada degan yihiin waxaa u soo socda wafdi ballaaran oo Jabuuti ku socda marka hore Somaliland tagi doona Puntland tagi doona waxay tagi doonaan dadkaas sidoo kale Galmudug waxay tagi doonaan Ximin Yahaab Hiiraan waxay tagi doonaan Shabeellada Dhexe oo ay madalug ugu badan yahay dirka dega waxay tagi doonaan Banaadir oo ah Benadir waxay tagi doonaan Shabeellaha hoose oo maanta gacantooda si buuxda ugu jira waxay tagi doonaan jubbooyinka waxaan u sheegayaa dhammaan dhalinyarada dhulkaas ku nool inay u diyaar garoobaan hawl adag baa soo socota challenge adag oo dad aan ogolayn baa jira jiritaanka iyo midnimada direed dadkaas sidii loogu babac dhigi lahaa
dulmina laysaga ilaalin lahaa in loo diyaar garoobo cabdi xaafid cawir ismaaciil hon cable t v london